6 qodob oo ay mamnuuc tahay in la sameeyo cuntada kadib. Marka aynu wax cunno, waxaa jira ficillo badan oo aynu sameeyno, kuwaasoo laga yaabo qaarkood inay caafimaad darro inoo horseedaan. Fiidiyowgan waxaan idinku soo gudbinayaa 6 qodob oo ay mamnuuc tahay in la sameeyo isla marka aad wax cunto. Cuntooyinkana kuma jiraan kuwa fudfudud. sigaar cabidda. Inkastoo markiisa horeba uu sigaarku caafimaadka dilo, haddana haddii aad cabto 60 daqiiqo ugu horeeya cuntadaada kadib, waxa uu wax ku yeeli karaa 10 jeer laab inta uu ku yeelo xilliyada kale ee caadiga ah. Sigaarku wuxuu ka kooban yahay nikotiin, taasoo nuugta oksijiinta uu jirku u baahan yahay si uu u dheefshiito cuntadiisa. Warbixino badanna waxay sheegayaan in haddii uu qofka cabo hal xabo oo sigaara isla marka uu cuntada ka faaruqo, uu la mid yahay mid cabay 10 xabo oo sigaara isla hal mar. Sidoo kale waxaa kordha dhibka uu keeni karo caloosha iyo sanbabada. Hurdada. Dad badan ayaa la qabsaday isla marka ay wax cunaan inay hore ka seexdaan, balse dhaqankaasi waa midaan marnaba habboonayn, dhibaateyn karana caafimaadka qofka. Markii aanu jiifsano, waxaa laga yaabaa qayb ka mid ah dheefshiidku inay hunguriga dib ugu soo noqdaan, cadaadis ku yimid darteed, kaasoo sababtay acidic nature. Ugu dambeynna waxaa ka dhasha waxa loo yaqaan acid reflux oo dhibaateyn karta caafimaadka qofka. Qubayska. Kugulama talinayo inaad degdeg u qubaysato isla goortii aad cuntada dhammaysato, waayo dheefshiidku waxa uu u baahan yahay energy fara badan iyo dhiig badan oo ku dhex wareega jirka. Si haddii aad ku qubaysato biyo diirran, dhiiggan wareegaya wuxuu soo saarayaa uumigaas oo caqabad ku noqon kara habdhiska dheefshiidka jirka. Cabista shaaha. Shaahu waa caafimaad, balse ma wanaagsana in la cabo cuntada kadib. Haddii aad shaaha cabto, shaahaasi wuxuu la falgelayaa iron absorption-ka ku jira jirkaaga, kaasoo ka kooban genetic acid, wuxuuna awood u yeelanayaa inuu bilaa nafaqo ka dhigo cuntadii aad cuntay. Maxsuulka halkaa ka dhalan karaana wuxuu yahay in 87% uu hoos u dhaco iron absorption-ka iyo iron deficiency-ga ku jira jirkaaga, kaasoo ku horseedi kara dhiig la'aan, dawakhaad, daal fara badan iyo weliba tabar darri. Cunista midhaha. Dhakhaatiirtu waxay sheegaan inay fiican tahay in midhaha la cuno cuntada ka hor, maxaa yeelay midhuhu waxay ku dheefshiidmaan mindhicirkana ku gaadhaan wax ka yar 20 daqiiqo, halka ay cuntooyinka kale ku gaadhaan saacado. Laakiinse haddii la cuno midhaha cuntada kadib, waxaa khasaba inay midhahaasi ku hakadaan caloosha muddo saacada ah inta ay cuntooyinka kale dheefshiidmayaan. Habsanka halkaa ka dhashana wuxuu sababi karaa calool istaag, laab dilaac, ugu dambeynna gaastari. Cabista biyaha qabow. Iska jir inaad cuntada biyo qabow ka daba cabto, maxaa yeelay waxaa dhici karta inuu jirku hore u awoodi kari waayo inuu cuntada dheefshiido. Cab biyo dhexdhexaad ah, iyaga ku habboon dheefshiidka iyo inuu jirku nuugo nafaqada cuntadaas.